waxbarashadu waa hubka ugu awoodda badan xaalad kasta ay jirtaa. Marka xaqiiqda laga hadlayo, qalinbeeraha iyo qoronqorigu waxay ka awood badan yihiin xabadda, qoriga iyo mindidaba. Jihada aad waxbarashada ka bilaabayso waxay go'aamisaa mustaqbalka noloshaada. Haddii aad doonayso maskaxdaadu inay ilaaliso mustaqbalkaada, waa inay markasta su'aal isweydiisaa: qofku haddii uu doonayo inuu waxbarashada ka guulgaaro, fadlan waxa u barto si xiriir ah. Haddaba, waxaan kula wadaagi doonaa 9 qodob oo kaa caawinaysa inaad ku raaxaysato nolosha ardaynimada. Kanaalku waa Horumariye, aniguna waxaan ahay Ayuub Cabdikariin. Haddaba ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta. qodobka koobaad, ilaahay tala saaro. Tala saarashadu waa muhiim. Mar kasta oo aad taladaada ku aaminto Alle weyne subxaanahu wa tacaala, waxa uu kuu xifdinayaa sirahaaga, waxa uuna kuugu duwayaa dariiqa guusha, farxadda, baraaraha iyo amniga. Haddaba taladaada ku aamin Alle weyne subxaanahu wa tacaala. qodobka labaad, dhiirigeli kan kaa liita. Haddii aad caawiso qof kaa hooseeyo, maskax ahaan iyo maal ahaan baad u caawiso, waxaa imaanaysa in qofku farxo, kadibna Ilaahay waxa uu farxad ku wada abuurayaa labadiina qalbi. qodobka saddexaad, hadaf yeelo. Tilaabo walba oo aad u soo qaadayso goobtaada waxbarasho, u sheeg qalbigaadu in ay tahay guushaadii oo aad u sii dhowaanayso. Rajo isgeli oo u abuur naftaada jawi kale. Maankaaga geli in ay kuu muuqato guushaada. Dhiiranaan, dulqaad, geesinimo, karti iyo adkaysi intaba saaxiib dhow la noqo. qodobka afaraad, la farax asxaabtaada. Markii aad waqti la qaadanayso asxaabtaada, aawmi si dhab ah waqtiga ula qaata, muuji dhoola caddayn iyo niyad furfurnaan. Sidoo kale isku day inaad agtooda ku hilmaamto wixii cuqdad iyo niyad xumo kuugu jiray. Naftu mararka qaar way u baahan tahay madadaalada, ee buug iyo shaqo uun ha isku dhiibin. qodobka shanaad, diiradda saar cilmiga. Waxaa macquul ah in qalbigaaga ay ka guuxayaan fikirro aan wanaagsanayn, sida in aad tahriibto iyo wixii la mid ah. Hamigaas ka saar maankaaga oo diiradda saar barashada cilmiga. Waxbaro uun adiga fursadaha la amakaagi doonee. qodobka lixaad, la fariisa dadka faniga ah. Waqti la qaada dadka awoodda u leh inay dadka ka qosliyaan iyo kuwa fikirkoodu wanaagsan yahay, qalbigooduna nadiifka yihiin. qodobka toddobaad, la tag naftaada goobaha cagaaran. La banaanbax naftaada oo la faaq una sheeg hadafyadaada, wax u qabsooma iyo wax u harsan, iyo weliba sida rajadu u fiican tahay. qodobka sideedaad, gey naftaada goobaha hawada fiican leh. Kolkii aad booqato goob cagaaran oo hawo leh, afka isku qabo, kadibna si fiican sanka ugu qaad neef. Markii aad cabbaar jiido, hal mar afka ka sii daa. Waxa aad soo tuuraysaa cabsidii iyo walbahaarkii kuugu jiray, waxaana kuugu beermaya nolol rajooyin badan oo caafimaad qabta. Waxaa kuu bilaamayo habfikir cusub iyo nolol rajo sare leh. qodobka sagaalaad, shaqo kuu gaar ah abuuro. Xilliga aadan wax baranayn, waa in aad yeelataa meelad kuu gaar ah. Waxaa ku kaafin kara waxaad adigu leedahay. Haddii aad dareemayso ciriir nololeed, raadsa lacag yar, kadib ganacsi hoose ka bilow. $10 ayaa kuu furi karta ganacsi. Waa haddii aadan rabin faan. Soomaalidu waa faan jeceshahay, laakiin ogow shaqaa sharaf leh. Waddanka Uganda, Professor Xamaali ayaa laga sheegaa sideedaba nin lacag doonayo ma xishoodo. Waxaan kuu sheegay waa wax jira. Saaxiib, adiga iska leh qaabaynta mustaqbalkaada. Qoraahda aan hadalkayga ku soo koobayaa waa shayga la yiraahdo hadalka iyo dhegeysiga. Sideedaba markaad hadlaysid, waxaad ku soo celinaysaa waxaad ogeyd kaliya oo aqoon u lahayd. Laakiin markaad wax dhageysatid, waxaa dhici karta in aad baratid wax kuugu cusub. Allah subxaanahu wa tacaala xigmadiis aadka u xeesha dheer. Marka aynu fiirino abuurkayna, Rabbigayn wuxuu inoo hadiyeeyey oo ina siiyey oo nimcooyinkiisa waaweyn ka mid ah in aynu leenahay 2 dhagood oo aynu wax ku maqalno iyo 1 af oo aynu ku hadalno. Afku ama hadalku ma soo kordhiyo wax cilmi ah, laakiin dhageysigu waa meesha cilmiga ugu tirada badan oo u soo maray maskaxdeena. Waa xaqiiqo ah oo aad soo xasuusanaysaa qowlkii Ilaahay oo uu leeyahay: wa fii anfusikum afalaa tubsiruun.